Jarmalka ka baxay caalim weyn oo ku magac dheer Ibn Khaldun. Ibn Khaldun magaciisa saddexan waa Cabdiraxmaan bin Moxamed Ibn Khaldun Abu Zayd Waliyuddin Al-Hadrami Al-Ishbili. Wuxuu ku dhashay dalka Tunis sanadii 732 Hijriga. Qoyskiisu waxay ahaayeen qoys lagu yaqaanay cilmiga iyo wanaagga. Aabihiisna wuxuu ahaa macalinkiisii koowaad oo ku barbaariyay diinta iyo aadaabta. Ibn Khaldun wuxuu ahaa ruuxii ugu horreeyay ee aasaasay cilmiga bulshada, halka reer galbeedku maanta ay u nisbeeyaan nin Faransiis ah oo lagu magacaabo Auguste Comte. Qarnigii 14aad wuxuu qoray kitaab uu ugu magac daray Muqaddimatu Ibn Khaldun, kaasoo hordhac u ahaa kitaabkiisa caanka ah Kitaabul Cibar. Sidoo kale wuxuu leeyahay kutubo kale, waxaana ka mid ah Kitaabul Khabar can Dawlati Tatr iyo Kitaabu Rixlati Ibn Khaldun. Caalimku wuxuu ku soo barbaaray Tunis, wuxuuna soo maray wadamo badan oo ku yaala waqooyiga Afrika ilaa uu yimid Masar, halkaas uu ku guursaday, wuxuuna ku noolaa 25 sano. Isla Masar ayuuna ku dhintay sanadii 1460 miilaadiga. Hadalladiisii ay taariikhdu qortay waxaa ka mid ah